wajeer waxay joogtaa 10 years of revolution 10 sana ayaa la mari hayaa nidaamkan countiyalka oo wadanka imaaday sanadii 2010 waxaan yes dhahnay sharciga cusub oo laga soo guuri oo lagu dhaqay Kenya from 1963 up to 2010 waxaan joognaa 2022 sharcigan waxa dhaqan galay the first election markii Kenya ay doorasho aaday oo yes iyo no loo codeeyay oo yes dhaqan gashay 2013 oo dhaqan galay nidaamkan devolution counties oo maanta Naciimo wax ka rabto 10 sano kadib waxaan rabaa inaan aftiimay meesha u socoto Naciimo walaashay Naciimo Sheekh Cabdiqaadir 10 sano kadib Wajeer County oo ku bilaabatay budget of 6-7 billion ku bilaabatay maanta maraysa more than 11 billion maraysa cidihii qoysaska reer Wajeer lacag iska aruuriyaan biyo lagu dhaaminaya 10 sano kadib oo intaasoo billion sanad walba ay countiga soo martay Wajeer maanta qoysaska cid inta lacag loo aruuriya ayaa biyo loogu dhaaminaya oo tusaalaha ugu dhow ay tahay cid dumaalo maanta meeshan fadhida afarta deegaan ama shanta deegaan oo kulada Wajeer County lacag ciidan laga aruuriya biyo looga dhaaminaya waxay tusinaysaa taasay the power of leadership madaxnimo xumada soo martay Wajeer ay tusinay waxay aftiimanaysaa maanta in Wajeer ay ku sii socoto god mugdi ah haddaan si dhab liskugu imaadin oo si dhab loo hadlin siyaasadda lablakaca ah oo Wajeer maanta ay ciidaha waaweyn ku hogaaminayeen dogoodii ciidaha waaweyn siyaasadda lablakaca ay ku hogaaminayeen waxay dhaxal siisay balaayiinta Wajeer soo gashay meel ay aadan idoon la garanaynin cidii ayaga ay maanta lacag aruursanayaan oo dhulkii la kar soo jeedaan lacag la aruurinaya number ma noqon karo leadership waa badannaane ma noqon karto leadershipka waa wax loo dhasha lana barta lana dhaqan geliyo ilaahayna dadku abuuro goolka aan u soconno waa inay nolosha reer Wajeer wax iska bedesha ma aha dumaal noloshiisa wax iska bedesha Wajeer County waxay u baahan tahay 2022 haday noqoto county assembly haday noqoto national assembly haday tahay county executive waxaan u baahanahay in kacdoon shacab asdaca oo reforms lagu sameeyo siyaasadda county-ga Wajeer 2022 waxay Wajeer maanta u baahan tahay change of leadership policy-ga county-ga maanta waa inay iska bedelaan